waxaa shalay soo idlaaday barnaamijkii caanka ahaa ee Paycheck Protection Program. barnaamijkan oo small businesska lacag la siinayay 16 governor ayaa sheegay in ay joojin doonaan Federal PUA Pandemic Unemployment Assistance $300 la siiyo dadka shaqo la'aanta ah. waxaa bilaabanaya goor ayadana lacagtii loogu talagalay in la siiyo carruurta. madaxweyne Biden ayaa sidoo kale wuxuu soo bandhigay qorshihiisa budgetkiisa 2022 $6 trillion ayuu sheegay inay ahaan doonto. akhyaarta meel walba joogtaan waa salaamantiin, waa Maxamed Faarax. waxaan maanta idin hayaa 4 qodob oo muhiim ah. 4 qodob inta idin guda galin waxaan idinka codsanayaa in aad Facebook-gayga iyo sidoo kale YouTube-gayga saaxiib iga noqotid. YouTube channel-kaygana aad saaxiib iga noqotid oo subscribe garaysid igala socotid, halkaas aad iga follow garaysid. fadlan videogan sidoo kale haddaad ku aragtid social media Facebook iyo YouTube la wadaag saaxiibahaaga, familkaaga iyo dhammaan ehelkaaga. aan idin guda galay Paycheck Protection Program oo ahaa small business-ka la siinayay lacagaha $284 bilyan ayay ahayd. barnaamijka ayaa shalay soo gabagabay May 31. waxaa dhiman oo wali aan qaadan malaayiin Mareykan small business leh ayuu ku xirmay, sidoo kale malaayiin kalena wali may buuxinin. waxaa la saadaalinayaa lagana codsaday Congress-ka in ay barnaamijka mar saddexaad dib u furaan, lacagna soo ansixiyaan sidii ay u siiyaan dadkan. waxaa la sheegay SPA-da iyo lanarada waxay sheegeen dadkii buuxiyay way process garanaynaa, kuwii u qalma inaan approve garanaynaa waa approve garanaynaa, kuwii aan u qalminna waa la reject garanaynaa ayay sheegeen. intii buuxisay oo hore processkooda ay ku jirayaan, intii aanan wali buuxin waxay dhaheen wuu dhamaaday barnaamijka maanta June 1 ah lama buuxin karo. waxay dhaheen Congress-ka ayaa lacag ka dalbanay, Congress-ka ayaana jawaab ka sugaynaa. barnaamijkan ayaa caana, small business badan ayaa lacag la siiyay, laguna taakuleeyay si ganacsigooda COVID-19 saameeyay ee dib ugu yeeglaan. wixii ka soo kordho oo la socodsiin doonaa. 16 governor oo Republican ayaa ku dhawaaqay in ay joojinayaan lacagta ay federaalka qaataan $300 siiyaan dadka gobolkooda joogo ee shaqo la'aanta. waxay sheegeen in dadkii lazy noqdeen, shaqana rabaan ay dhaheen inay raadsadaan oo waxay rabaan lacagta inay iska dhuuqaan jiif oo jiqe $300 federaalka iyo lacagtiisa iska qaataan isku darsadaan dhaheen wiigii $200 ilaa $1,000 oo soo dhacdo ma rabaan inay shaqeystaan. sidaas daraadeed waxay sheegeen June ilaa July waanu joojinaynaa lacagta federaalka ayaanu celinayna. lacagtaas oo celinayna ah bilaayiin dollar. 16 governor ayaa wada ah xisbiga jamhuuriga. gobolada uu xukumo ama gobolada dimuqraadiga wali wax ma sheegin, wax isbedel kuma soo binin. barnaamijku wuxuu sii dhacayaa oo Federal PUA unemployment-ga ilaa September 6. laakiin haddaad 16 gobol joogtid fadhiga ka shaqan raasida quruxsada badan goboladan ayaa kala ah. gobolkan joogay Ohio, Alabama, Arkansas, Arizona, Georgia, Idaho, Iowa, Mississippi, Montana, North Dakota, South Carolina, North Dakota, Tennessee, Utah iyo Wyoming. 16 gobol dad ku sugan tahay fadlan fadhi kuma yaalo. June ilaa July ay dhamaanaysa aan ku guda jirno shaqo raadso. shaqooyin badan ayaa waxaa la sheegay in gobolada dhammaan wada leeyihiin kambaniyashii way dacwadeen oo gobolada ku dacwadeen waxay dhaheen shaqooyinkii wax noo shaqeeyaa laanahay. haddii aad Ohio joogtid shaqo la'aan tahay welina aad qaadatid unemployment benefit, waxaa booqataa visa xalaal xafiis ku yaalo uu leeyahay liibaan buu leh, halkaas oo idinkaga caawin doono qaabkii shaqada loo buuxin lahaa iyo shaqooyin badan oo soo weersaday sida Limited iyo Amazon iyo shirkadooyin waaweyn ayaa raba in la shaqaale. soo fadlan haddaad shaqo rabtid u tag liibaan buu leh oo idinka caawin doona. haddaad gobolada kala joogtaana fadhiidama yaalo fadlan shaqo raadsada intii waqtiga idinka dhammaan. barnaamijkii caanka ahaa waa qodobka saddexaad oo child tax credit oo la siinaya carruurta $250 ayaa wuxuu bilaabanayaa July 15. lacagtan ayaa loogu talagalay in carruurta la siiyo laguna taakuleeyo familada carruurta leh. bil walba ayuu soconayaa oo bilaabanaya July ka bilaabato. lacagtan ayaa waxaa lagu eegayaa dadkii canshuurta buuxiyay tax return-kooda. lacagtan waxaa loogu soo dirayaa ama IRS markii hore account-iga siisay ama aasiisay guriga inay kugu soo diraan lacagta halkaas ayay kugu soo dirayaan. waxaa idinka waanayaa lacagtan waxaa loogu talagalay carruurta iyo familkiina in dhaqaalihiina kor ugu yeelaysan oo u qaadaan. fadlan lacagtan haddaad tihiin familada Soomaaliyeed si khaldan ha u isticmaalna, si sax ah u isticmaala. lacagtan carruurta u dhiga ama u save garan kartaan waxay rabaan iskuulkooda iyo dugsigooda ay ku aadaan waxbarashadana oo u gada ku taakuleeya. qodobka ugu dambeeyo waa madaxweyne Biden ayaa wuxuu propose gareeyay $6 trillion. wuxuu sheegay in qarniga 21 ku jirno Mareykan infrastructure-kiisa iyo dhaqaalihiisa uu dhulka galay si oo la tartamo Shiinahana oo u baahan yahay lacag xad dhaaf ah
oo $6 trilyan 2022 si uu ugu dhiso haweeyaasha jidadka waxbarashada caafimaadka iyo other social services dadka Mareykan oo low income ka ah oo poverty rate ku jiro si uu ugu soo qaado middle class oo ka dhigo xisbiga dimuqraadiga ayaa proposalka Biden la riyaaqay laakiin xisbiga jamhuuriga ayaa dhaqsadayba ka soo horyimid waxayna sheegeen in lacagtan ay tahay lacag xadaaf ah oo deficit deena sii gelinaysa Mareykan lacagta deenta Mareykan maanta lagu leeyahay dhamaanteen dadka Mareykan lagu leeyahay waxay tahay $28.17 trilyan ayaa waxay maraysaa maanta US public national debt waxay sheegeen lacagtan hadii lagu daro ee sii korayso 30 trilyan ee sii dhaafayso sidaas darteed waxay dhaheen proposalka Biden waa inuu yareeyaa lacag infrastructure ku dhiso waan siinayna waa Mitch McConnell oo xisbiga jamhuuriga kooxdiisa sida ogtihiin waxa looga baahan yahay maadaama xisbiga aqalka hoose proposalkan October 1 uu soo bixi karo laakiin aqalka hoose ee ku adkaanayso dimuqraadiga maadaama konton dimuqraadi yahay konton yahay republican loona baahan yahay 60 in lagu mariyo waxa loo baahan yahay 10 republican oo qorshahan qaadato madaxweyne Biden ayaa wuxuu bilaabayaa inuu gobolada Mareykan luqwada maro la diyaarad uu barnaamijka faafiyo una sheego shacabka iyo senatarada goboladaas joogo in proposalkan ay ansixiyaan October 1 marka budgetka imaado si mataqaana 2022 loo dhamaan dhaqaalaha Mareykan kor loogu qaado madaxweyne Biden ayaa sheegay inaan la tartano darmada Mareykan inaan sheegnaa la tartano waa inaan dhisnaa jidad casri ah iyo jidad tareen casri ah oo bullet train ah iyo dhaqaale xoogan oo dhammaan Mareykan uu ku sii noqon karo number 1 country in the world qorshahan ayaa la filayaa inay ku adkaan doonto madaxweyne Biden in uu ka dhaadhiciyo xisbiga jamhuuriga balse waa arki doonaa meesha ay ku dambayso gunaanadkii intaas ayaan ku soo koobayaa 4 qodob ayaa idin waday fadlan la wadaag videoga asxaabta saaxiibta ah waa aniga maxaan faarax oo idin kaga tagayo amaana Allah